ururada maxalliga iyo kuwa dawliga ku xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kuwa wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland og agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda og wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland og madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo adeegsiga top level domain.so oo adeeg lagu isticmaalo website-yada tixraaca dastuurka Soomaaliland qodobkiisa koowaad faqradiisa koowaad iyo xeer nidaamyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda xeer number 2/2018 ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray wasaaradda oo xil saaran qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland adeegsiga iyo maamulidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda wasaaradda iyadoo sidoo kale ogsoon raadka ay ku yeelan karto isticmaalidda waxa la yiraahdo top.level.so taasoo ay dhaawici karto qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waxa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda soo saartay go'aamada hoos ku xusan ee la xiriira domain.so waxa ka reeban adeegsiga top.level.so cid kasta oo cinwaan kula internetka sida jaamacadaha shirkadaha baananka ururada maxalliga iyo kuwa dawliga oo dhammaantood ka diiwaan gashan Soomaaliland laba waxa la farayaa mulkiilayaasha mareegaha internetka ama website-yada ee imika isticmaala top.level.so ga inay muddo 30 maalmood kaga wareegaan muddadaas oo ka bilaabmaysa berri oo bishu tahay 12 una wareegaan kuwa madaxa bannaan ee ciidan lahayn sida .com .org .net iyo wixii lamid marka ay dhamaato muddada 30 maalmood ee qodobka labaad uu xusayo waxa la xayiri doonaa ama la xanibi doonaa website kasta ama mareeg kasta oo isticmaasha top.level.domain.so Allah mahadle waa go'aankii wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiga oo nadxadsanta wasiirka aad ku weydiiyay su'aal magaca gobnaha farcamade waxa ku socdaa telefishinka SBC sida cad waxaad soo saarteen go'aan ka dhana SO oo sida muuqata dowladda Soomaaliya ay maamusho ama leedahay ama u diiwaan gashan Soomaaliland ahaan bedelkeeda shabakadaha iyo shirkadaha aad uga digteen inay isticmaalaan loo haystaan meel ay isticmaalaan oo lagu bedelo SO oo badeed hada marka waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo top level domain weey ama waxa weeye adeeg website-yada adeegsadaan waa laba qaybood qaybta koowaad waa country code ltd baa oo wadamaale qaybta kale labaadna waxa la yiraahdo generic ltd ama generic top level domain qaybta hore wadamada leh waa astaan qaran cidda maamusha waa waxa weeye hay'adaha ay leeyihiin wadamadu qaybta labaadna waa qayb guud oo madax bannaan oo cid kasta leeyihiin ilaa 18 nooc baa jira oo la isticmaali karayo marka inagu waxaan waddan wali la ictiraafin maynaan helin .so kale wali hadda laakiin maadaama aynu madax bannaanineeda ka qaadnay Soomaaliya ilaa imkana ay sheeganayso inuu qayb ka mid ah nahay ma isticmaal karayno .so waa sida calanka waa sida lacagta waa sida astaanta qaran waa sida maaragtay baasaboorka oo kale isaga laftigiisa oo ka taagan tahay marka dadku maxay isticmaali karayaan waxay isticmaali karayaan intaas oo nooc oo 18 ka sheegayo malaayiin u ogolaanay inay isticmaalaan marka hawsha furo iyadu waa qorshe qaranka dhan u yaal wasaaradda kaligeed maaha wasaaraddu qaybta waxay fulinaysaa farsamada ama qaybta technicalka hawsheedu way socotaa
furo waddan kale oo imika isticmaalayna ma jiro warbaahinada qaar baa qorayay taasi wax jira maaha laakiin qorshahaas uu socdaa muddo inuu qaatana laga yaaba sida ictiraaf raadinta weey laakiin qorshaheedu waa la dhigay hawshana waa lagu jiraa meel fiican oo maraysa way jirtaa horta halka ugu horeysa laga galaya waa xanibaada talabaadna kulay cid ku socoto waxa kamid ah xeer ilaalinta oo imika tani waa siyaasadii koowaad xeer baa ku xig doona dambi qaran baa noqon doonta markay gaadheen kulay ay soo bixi doonta هذا الطبق له والناس معنا فايتو يعني معنا ممكن جد وياه هذا الطبق الناس معنا إنه ثلاثة صومالي الناس معنا wuxuu kaga duwan yahay tan domainku iyadu waa magac qofku bixisanayo uu dooranayo marka hadaad tusaale ahaan oo kale aad doonayso inaad wasaaradda isgaarsiinta kale aad samayso waxaad dooran kartaa wasaaradda isgaarsiinta.com wasaaradda isgaarsiinta.org.net waxaad helaysaa intaas oo option ama waxa way magaco ka doonay kariso laakiin 252 waxay sameynaysaa shirkado waxay leedahay hay'ado gaar ah oo maamula marka iyada laftigeedu ma aha in isticmaalayna hawshu inuu ku jirnaa hawshaas ma socotaa marka ay noo dhamaatana waynu sheegi doonaa hal mid baan doonay inaan ku daro kullay waxa weey su'aasha la socota waxa weey qarannimadu waa waxaynu 27 ka sanadood aynu joognay marka waxa weeye dhammaan shirkadaha iyo hay'adaha isticmaalaya .so marka dunida kale la eego wax lagu garanayo tahay Soomaaliya Djibouti inagu xigtay imika waa .dg way Ethiopia.et Imaaraadka kale waa .ae way marka .ae marka la wax la garanayo wadanka uu ka tirsan yahay oo yahay inaguna de kama tirsan Soomaaliya inuu ka madax banaanahay marka ujeedada ugu dambaysa waa taa way waxa la helayaa taas oo maaragtay doorasho kala duwan qofku helayo marka muddadaas wadanka maalmood gudahooga ha kaga baxaan waanad mahadsantihiin salaam وين ضمن يا معي اوكي ما markii hore shirkada gaar ah gacanta ku hayay oo way madax banaanayeen laakiin waad ogeedeen muddo dhowr maalmood ka hor in dawladda ay la soo wareegtay waa hanti ay leedahay dawladda Soomaaliya